kansarka minka ku dhaca afkiisa halka waa anatomigii oo cervix kaas kore waa minka waxaa ku xiga tuubooyinkii meedaas cadoo hoose waa ugxantii hoos markii loo soo degan halka cervix ku yaala waa meesha cervix la dhaho waa minka afkiisa waa isagoo koobanna waa ka halkaan sawirka uu kaaga muuqdo cervix-kaas oo minka afkiisa ah subhanallah jirkeena meel walba waxbay qabataa oo shaqo gooni ah qabataa cervix-kaas yarka ah oo afka hore oo minka ah inta shaqo uu qabto lama koobi karo waxa kamid ah inay caadadu soo marto oo waa furan yahay haduu xirnaan lahaa meel caadadu ka imaan lahayd lama helaan waxa kale kamid ah in ma aragtay jamaaca markuu dhacayo shahwada ay marto ilaa tuubooyinka sababta shahwada waxay ka dhacdaa bacriminta halkaas ugxamaha ah oo meel fog ah tuubooyinkaas sii maraysa ilaa ugxanta ay tagto waxay sahashaa inay shahwadii halka marto oo halka tagto tan kale aad ka muhiimka u ah xilliga dhalmada Soomaaliyeed maqalnaagta 4 cm bay furanta 5 cm bay furanta waqtiga haweenka ee uurka yeelata biqadrati raxmaa bahalka afkiisa waa isxiraaya hadii kale ilmihii baaba soo dhici lahaaba wuu xirmaaya maalintii naagta umulayso wuxuu bilaabayaa markii cunuga madaxiisa uu soo riixo inuu tartiib u furmo 1 cm u furaya 2 furaya 3 furaya 4 5 6 9 ilmihii baaba soo dhacay marka intaas oo hawlo oo cajiib ah buu qabaa haduu xanuunsado marka hawlahaas xagee aadeen hawlahaas waa ku daayeen siib qofkii xilliga dhalmaad ku jira hadii qofka caadada ka tagto kale macna mar waa la tuuri karaa isagoo dhan laakiin gabadhaha yar markay yihiin oo kale waa qatarteeda in la isla socdo cervical cancer-ka marka wuxuu ka bilowdaa cells-kaas unugyada afka hore oo minka ah lining-kaas ayuu ka bilowdaa wuxuu u bataa si uncontrollable ah lama ogaan karo ilaa testigaas la qaado isagana waa silent killer kansarka waxa la badanaaba wuxuu ka bilowdaa transformation zone kala dhaho oo zone-kaas yarka oo afka minka hortiisa kadib wuxuu ku fidaa cervix-kii ka tagaya minkii ku fidaaya ugxamihii tagaya ilaa uu jirkii oo dhan minkii oo dhan ku fido how common baliya marka cervical cancer-ka seebu common u yahay qof walba oo cervix leh oo haween ah riski buu yahay sanad walba Australia waxa ku dhaca 960 haween ah ayaa ku dhaca kansarka cervix-ka 900 waa kun ku dhawaad Soomaa 960 women ayaa Australia ku dhaca kansarkaas maxaa keena marka kansarkii hore oo naaska badanaa ma aan naqaan we don't know the cause kansarka waxa keenay laakiin waxyaabihii loo maleynaa wuxuu ahaa genetical in family history uu jiro in ma aragtay maxay tahayd qofka uu hormoon uu wax badan qaadanayo in ma aragtay waxyaabahaas laakiin kan wuxuu ku fiican yahay waa la yaqaanaa waxa keena oo ugu badan cervical cancer-ka waa human papilloma virus waa virus aan xataa qofka haduu ku dhaco aan aad dareemi karin galmada lagu kala qaadaa ninka ku keeni kara ama adaa qabi karo yaraantaada ku dhici kara lama ogaan karo ilaa qofka anag sexual health clinic ma tagno dadka waxay tagaan badanaa si ay isla socdaan caafimaadkooda xagga sexual health clinic waxa jira ilaa 9 cudur oo galmada lagu kala qaado laakiin maadaama aan islaanahay oo aan ku koobanahay ma aragtay waxa lama sameeyo marka bahalkan waxa ugu weyn oo keena waa human papilloma virus-kaas kansarka wax dhib ama laha markuu qofka qabo wax calaamad aan ma leh ilaa test laga qaadan lama ogaan karo hadii infection-ka uu wax badan qofka hayo unugyadiiba isbedelay mutation sameynay oo hadhow waxay noqonayaan precancerous kansarkii bilowgiis that's why hadii aadan qaadin
oo aan testiga laga qaadin unugyada isbedelay lama ogaan karo unugyada markay isbedelaan waqti dheer bay qaadanaysaa dhaqso uma fufo bahalkan it takes few years 3 sano 4 sano 5 sano hadhow markaa calaamadihii iskeenaya waa maxay waxyaabaha inoo sahli karo inuu nagu dhaco oo khatarta ah waa smokingki waa sigaarkii ama shiishadii wixii aan idin sheegay long term use macnaha waqti badan oo la isticmaalo family planningki daawooyinkii kala dheeraynta caruurta hore hadduu kansarku ugu dhacay riskiyood ku tahay caruur badan haddaa dhashay oo niman badan soo guursatay khatarta guursiga badan ruuxeeda ama xagga ninka ka imaado ama xagga naagta ayada ruuxeeda waa risk factor sababtoo waxa laga yaabaa ninkaas naago u guursanay ama naagta nimanka ay guursanayso inay viruski qabaan viruskan waxba qofka uma dhimo mana la ogaan karo ilaa uu qofka uu iska qaado iska test-gareeyo uu dhaha laga test-gareeyo waxyaabaha keena cudurrada galmada marka waxaa la yiri hooyooyinkaas guursiga badan ama nimanka guursiga badan uu ku dhacaa bahalka sidoo kale haddii difaaca jirkaaga uu yar yahay riskiga u tahay ilaa wax hadduu qof jecel difaacaga yaraado cudur walba waxa u tahay maxay tii inuu kugu dhaco family history haddii hooyada ama habarta ama familygaaga qof ka mid uu ku dhaco cervical cancerka adigana riskiga waa ku jirtaa waa maxay marka calaamadaha lagu ogaanayo sidii kansarka naasaha isagana calaamadihiisu wataa waxaa la yiri marka uu yahay precancerous ama uusan kansar isu bedelin unugyada ma laha wax calaamad ah that's why ay muhiim u tahay every 2 years inay haweenka iska qaadaan pap smearkaas ama pap testing hadda pap smearka waxa lagu bedelay pap test oo ka sii fudud hadhow baan ka hadli doonaa marka waxa wax calaamada ama laha the only way lagu ogaan karo abnormal cell inay unugyadii minka afkiisa isbedeleen oo kansar isu bedeli rabaan waxa kaliya lagu ogaan karo waa maxay in aan iska qaadno cervical screening oo waxa maanta meesha wada fadhin waxa la yiri maxaa calaamada koowaad lagu arkay waa bleeding ka imaanaya labada caado dhexdooda laakiin waxay dhahaan waxa igu dhacay dhiig furan dhabar furan igu dhacay waa calaamad red light hadaa dhiig isku aragtid labada caado dhexdooda ah waa khatar waxa la yiri markii jamaac dhacayo haddii uu dhiig ka imaado after sexual intercourse ayadana waa calaamad kale ama xanuun dareentid waxa la yiri caadadii oo ka badata waqtigeedii cadaduna ka badato barseembi hadoo kale caadada kugu dhacday 9 bari 10 bari iska soconay la caado furana igu dhabar furan waana ka sii badanaysaa xinjiri iyo waxa imaanaya ma aragtay dhiig badan waa calaamad kale sidoo kale tan oo muhiim ah waa bleeding after menopause caadadii baa ka tagtay barseembiyo 2 sano 3 sano ka hor naageen aad caado u jecelihiin I don't know why taasna hadda waa iga jawaabi doontaa aniga case soo maray islaan aan arkay waxay tiri Allahu akbar 3 sano 4 sano caado iga maqanay intaan caani geel iyo adduunyo cabay baa hadda say iga socod yaa 3 sano ka bacdi la ilaaha illallah waxa u baahan inay isbaartid marka waa khatar caadadii oo ka tagtay after 2 or 3 years hadduu dhiig imaado waa sign calaamadaha lagu garto kansarka minka ama cervicalka increasing unusual vaginal discharge dhacaan caadi ah oo aad hore iskugu arki jirin oo ka imaada cambarka waa isla fahmaynaa لا دكتورة حاليا unusual vaginal discharge dhacaan aan caadi ahayn ama biyo mararka qaarkood urbu wataa xataa baa ka imaanay oo kii hore ka badan ilaahay wuxuu ugu talagalay
محيط عنبر كينا لعان عادي مرور بليها أو فإذا نوعه جيل من قلة قال ما دو قليل أهان لها بكتيريا كستا نقول لها إنفكشن نقول لها يعنعن لكن الآن كان waxaa ku jira waxyaabo bakteeriyada la dagaalamaya baqotirta rahmaan marka difaac buu banooyaa laakiin waxaad arkaysaa dhacaankii wax ka badan oo aan caadi ahayn kaas qofka mar walba normalkiisa uu yaqaan oo kastuumadii soo garaa ama urla ama kalarka uu kala bedelan yahay hayd xanuun waxa imaanaya pelvic pain min dhicirkii dhabarkoo dhan qofkii xanuunaya دال زائد وقفك اسكو أركايا تانس أنت دال ودالين حتى هدول ساعد ونستو دال كما بكبا وعلامتها كانسر لقيه وحنونا يعني أما ويبررها يعني بدنا هاللقا بررتي أما لبدا الغوضبا ويبررها وعلامت كله هو محمد سكرينينج وعلى النوع أول واحد سمين جيرنا واحد له باب تيست وهو أها الاختيار إنها تكتيت سبيكولوم كانوا قلنا بهالك هالك كم سبيكولوم كاس أو كلا قبنا مع ارتعامبركي كدبنا براش سباتشلا واحد له نختاركي أمانيرسي جوالته ونجدي بيسوي حقيسة كدبنا شيء بارا لودي رجله هذا باب اسميركي وحابدلي وحلا له باب تيست هذا اسك قاضي كرتي أما قول جا اسك قاضي أما مركز فاميلي كلينيك الاختيارات وتكتين قفكي كحشانة بكوس هوين كان بدنا وحي كحشانان إن الاختياركي سيبه دونني هاي أو كله إنه عمبر كذا أو أركو ولا كذا قاعد مركز هذا كان هذا كسي هلايا هذه جيبه ماشي الاختيار قداشي يسوي حق ليسا مسخوشة أما مايا ماشي سريرتي يرتع أنتي الوحرة بهالكاس تجيب يروى هذا وحنا أركضنا فيديو يرأى تجيب كاسات قلنايسا وعلى ديرها مركا كان مو وحكي هاليري باب تيستيجي مو effective سببته كم وحو أوغانا يا إنه هيومن بابيلوما فيروس كي كينا كانسر كمينكا إنه جيرو مركو حلقو أوغانا يا منكي إنه إسبدل سيل تشينج أو كدعي هالكا هدي إسلا مركي لغو أوغادو هاتيرتي وحي قادنا يا تلابو وحي كوحيغا بايبسي عاد يرى laga soo goosanaya ama la soo xoqaya shaybaarka loo diraya waxa la ogaanaya kansarka nooca uu yahay hadii la ogaado markaas stepski kale x-ray lagu diraa dhiigaga lagu diraya daawadiya markaas lagu balangareynaya oo ahayd go'aanka maminki kaliya ku egyahay afkiisa oo afka kaliya goyna maminka oo dhan baan tuurnaa maminki iyo ma aragtay maxay qanjirada ku dhow si uu hadhow ugu faafin jirka intiisa kale decision kaas go'aankaas adiga dhakhtarka isla qaada waxa lagu sheegayaa adiga the best option ka kuugu fiican waxa la leeyahay kansarkaas qabtaa saasan sameeynayna maxaa ka qabtaa go'aanka meesha qof la isqasbi iyo qof la waawaaninayo ma ibliis samee bahalka ma jirto what's your decision ما هدات راهد إلا ما بفهم سند بوحن بريك مال إنه قتل كوكينا هيا أوكي thank you بابو هالفضيسة بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت هل كان وحن سوي معنا برنامج كسابسن وعي جلنتا كانسر كودع ناسها يا كانسر كالمجالنتا المجالين كودع كانسر كاس يدا وعي جلين كيسة أما أويرن كيسة سيد اللوجه هرتجي لها مهم كأي تهاي إن لجه هرتجه وحنا نسوي شيء يي ولا شين دكتور سيد الجامع وتخصص الإرادة أوله برنامج كعافيمات كدمر أما المرة مرول بوعي جلنت الدمر كيا عافيمات كهوين كتخصص أوله آدي أيانا ما أنت اللوجه لي برنامج كي أي ولا شيء نسوي شيء سي بنا وقفر حسن هاي إلهي سبحانه وتعالى قبل داس ولا شيء إنه برنامج كاس أفكار إنه هو يناقش الرحضي أن كجبوا قلنا أفكار إنه هو إن يا إلهي خير بدن هسيو بنا وقوم هذ علينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أحكي محمد وحنا قاعد وفرح سنة مانت إن كسر قبل إنفورميشن كهرتجا يا أقانت لولي كانسر كنوعية سكال دون إن هذا كار دكتور عويس حونسي كانسر كإن ملوت عم الصحراء ماشى كتي مع ذقلا ما تندي ترسيد الجامعة وحين السيسي كانسر ناسها المجالين إن مروا البوعات من الإنفورميشن لقى بحنا وحوم بعد كفائدة
wixii aad ogeedna waa lagu xasuusinaya waxaad ogeen waad baranaysaa marka aad baan ugu mahadcelinayaa in East Africa Women's Organization Fartuun Faarax inay noo soo qabanqaabisay sessionkan oo kala waxaan rajaynayaa mustaqbalka dad badan inay ka faa'iideystaan oo ay ka soo qayb galaan maanta waxaan ka soo qayb galnay East African Community Elias community basically waxaan ka hadlaynay cervical cancer iyo breast cancer say important u tahay especially community-geena say u tahay because ma ka hadalno a bit taboo weyn ugu tahay so the session went well gabdhaha inay isbaaraan waa qasab especially hadaad isku aragtay calaamadaha da isku aragtay iyo horumar kastana wuxuu leeyahay like ka hortag buu leeyahay marka waan jeclaan lahaa inay isbaaraan gabdhaha iyo dumarka especially because 90% of the cases dumarku u badan yahay whether you're married whether you're not married